سؤال في عن بدي ويديسي قرابوبة يوسف تعالي وان دقيساني هذا الكيس حالي واصل لقوه الرئيي لبن من باكو الرئيي بدوحو جوغا كونفورت الصوماليا ومرنا مدحوينة كسون نقضي مدينة وحو جوغا هرقيسة وحونا كتنسان يهي مدشة وضطشيقا قولاد الليلة بروفسور عبسلان ياسين بالليلة هذا أدي أنكو الرئيي لبدانينا كو الرئيي مدينة حسن الشيخ محمود حسن الشيخ محمود isaga meel ma wada joogno waxa wadanka ka dhacayna war uma hayn xog laan buu iska hadlay xog laan iyo iska hadlay inkastoo nin madaxweynaha ahaa laakiin se wax xog ma hayn waana ayaan daro isagoon xog hayn inuu hadlo isagoo taytalka madaxweyne gaaray isaga inta u dhaafin maayo toddobaadkii hore saab TV waxa ka baxay barnaamij Professor Cabsalaan Yaasiin isaga laftiisu ku jiray wuxuu yiri soo cadaystaan عدينتي ها كينان بوري waxa la sheegay haday runta ninkaasi laba magac buu leeyahay professor ba magaciisa ka wareeyay erayga professor markaad maqasho waa qof aqooni ka muuqato runtii aanu ninka aqoon ma lihi laakiin soo warbaahinta markaad wajigiisa ka aragto nin diiniya la ka cabsi wajigiisa ka muuqdo buu igu muuqday waxa ayaan daraa ummadan inuu dafiro waa soo cadaystaan ila Cabsalaan wadiga ku soo cadaysan mayno hadday cadayn noqoto dhulka laga cadaynayo waa lagu yaqaanaa maanta maxkamadda timaado yaa la cadayn doona boobe waa nin qoraaya xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliland waana nin daa waa nin ka tirsan ururka Yaasalaam loo oran jiray muddo dheer wax qoray wuxuu ku nool yahay oo deegaanaan ka soo jeeda magaalada ugu dhow Boorama ee Gabiley leeyahay ونصيب درو سو قدهاس ومدحة إنه ما تضفروا ديجر هيرا وضل أو كتل ما مقحوتي سقودين على قرال كا كون يصدح بقوله قحوتي على الليبور وردت كي قحوتي ما هين مقالة ذا يا لوي مدي يدو عيدا كيمي استكارياشي سهور سعودان جبهد يسلم ويسوق لين دلابورم ويسوق لين 12 saacadood bay ku dileen 2,000 oo qof ku dhawaad dad qaxootiyeena ma yahay dadkii magaalada deganaa bay ahayn waanu ka raacinaanu soo joojino TV-yada agoontii ka hadhay iyo waalidiintii iyo dadkii ehladii qaraabadii oo anigu kamid ahay inaan soo joojino waanu ka raac waxaan se ka doorbidayni wada jirka shacabka Soomaaliland laakiin se nimanka haraagii saraakiishii sanamaha waxay caadaysteen oo ay mar walba ku dhiiranayaan qoqobka iyo xoqida laxawgi iyo boogihii dadka kala gaaray waxa kaloon ku daraya reer Soomaaliland annagu kaga masuugi mayno dawladdiisa barre systemkaasi inuu waxyeeleeyay oo uu xasuuqay oo dad badan magaalooyinka Burco iyo Hargeysa iyo Ceergaabo dib badan soo gaadhay iyo Gabileyba waanu qiraynaa haddaanu nahay reer Boorama waxa ayaan daraa in la qiri waayo oo saraakiishii sanamee dibta geysatay ama madaxdii ay maanta dafiraan waxa iyaduna nasiib darro kala hadii ay doonayaan reer Soomaaliland ragaa saraakiishii sanamahay inay xasuuqii ka dhacay Soomaaliland reer awdal qiraan oo ay la doonaan dibtoodii iyagoo wada jir Soomaaliland lagu doonayo haddana ay dafiraan dibtii gaar u gaadhay awdal labada isku helayaan guud ahaan Soomaaliland waxa ka taliya madax shacabka ku nool Soomaaliland dibtii gaadhay badhna u doodaya badhna ka doodaya guud ahaan Soomaaliland madaxda haysatay siyaasadda ku jirta maanta waa nooca wana nasiib darro Soomaaliland ku kooban waa su'aal muhiim ah axsaabta siyaasadeed ee la furayo waan soo dhaweynayaa laakiin waxaan ku soo dhaweynayaa xilligii sharciyadu banaysay ee 10 sano ahayd madaxweynuhu inuu fuliyo oo 2022 ka waastaysanay oo uu qabto doorashooyinka ka soo horeeya madaxweynaha waxaan weydiinayaa imise doorasho ka soo horeysay sanadka 2022 imise doorasho ka soo horeysay doorashooyinkii ka soo horeeyay madaxweynuhu qaban kari laayay wuxuu doonayaa inuu ku dhaafo moron iyo buuq haddana wuxuu talaabayaa uu leeyahay waxaan furayaa uradii anigu ma arkayo madaxweynuhu wuxuu tukanayaa salaadan la idaamin waxaan kula talin lahaa madaxweynaha
xitaa haddii aad ururada furayso adiga dankuumaha